aad baan idin salaamayaa akhyaarta sharafta leh ee ku xidhan channelka runta u kaalay waa Bashiir Muuse iyo casharadii aad uga barateen channelka waxaad la socotaan inaynu ku jiray cashar ku saabsan islaamka iyo badbaadada ama islaamka iyo aakhiro iyo qofka mu'minka ah marka waxaan hore u soo qaadanay cashar ku saabsan in uu Ilaahay sidoo doono yeelo oo aan garanaysaa ciddu doono u cadaabayo ciddu doono u jannaynayo oo aan laga seexan kareenin oo ma garanaysaa doonistiisu ay xor u tahay isaga oo aan cidna ma garanaysaa aynan isweydiin kareenin ma garanaysaa oo qof walba uu filan karo ciqaabtiisa iyo ma garanaysaa rajadiisa labadaba waxaynu soo maray oo kale cashar ku saabsan looxul maxfuudka iyo inuu Ilaahay si qoray wax walba oo lagu ma garanaysaa qof walba laga farxashay ma garanaysaa oo mustaqbalka mar horeba Ilaahay diyaariyay ayaynu soo maray oo kale miisaanka in aakhiro qofka loo miisaamayo camalkiisa fiican iyo camalkiisa xun oo qofka camalkiisa fiican uu bato uu badbaadayo qofka camalkiisa fiican uu yaraadana uu halaagmayo marka cashiradaas taxanaha saddexda ayaan soo maray maanta waxaan u gudbaynaa cashir kale oo afraad oo ku saabsan rajada islaamka iyo quraanku waxa mu'minka loo sheegay inuu Ilaahay rajeeyo oo Ilaahay wax fiican ka rajeeyo oo uu khayr rajeeyo intuu adduunka joogo marka inuu naxariista Ilaahayna rajeeyo cadaabka Ilaahayna ka cabsado weeyaan caqiidada islaamka marka maanta xagga iyo rajada ayaynu qaadaynaa oo cashir ku saabsan in Ilaahay wax fiican laga fisho oo qofka muslimku markuu dhinto uu Ilaahay wax fiican ka fisho ayaynu maanta ayaynu wadaagaynaa haddii Alla idmo marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada mar kale bal xagga iyo aynu aadno nusuusta diiniga ah nusuusta quraanka iyo sunnada bal aynu aadno aayadda koobaad waxay leedahay sidan واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون marka sidaad aayadda ka dhadhaminayso waxa weeyaan nabi Muuse ayaa laga sheekeynaya oo aayadda quraanku nabi Muuse ayaa ka sheekeynaysaa oo Ilaahay istus igu yiri wuxuu yiri Ilaahay waan ku arko ma ku arki karaa marka aayadihii ka horeeyay aayadan ayaa ka soo sheekeysay marka sida aayadu leedahay xiwaar Ilaahay iyo nabi Muuse dhexmaray ayuu ahaa Ilaahay wuxuu ku yiri lan taraani qaala lan taraani ولكن انظر إلى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا marka aayadahaas ayay ka soo hadashay marka Ilaahay wuxuu ku yiri Muuse ima arki kartid laakiin buurta eeg buurtii markuu rabbigu isu tusayna buurtii way dhalaashay nabiguna wuu suxay marka nabigi cudurdaar buu sameeyay Ilaahay uu ka cudurdaartay codsigaas ma garanaysaa maadaama uu xamil karin oo buurtii baa dhalaashay marka nabiga ayaa marka Ilaahay codsiye weydiistay oo ducaystay marka waxyaabihii nabi Muuse Ilaahay weydiistay ayay aayadu ka hadlaysaa marka sida quraanku inoo soo gudbinayo marka waxay leedahay nabi Muuse hadlay wuxuu waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil aakhirah inna hudna ilayka ebo adduunka inta aanu joogno wax wanaagsan waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil aakhirah aakhiriya adduunba wax fiican ebo noqor wax fiican ebo noqor ya واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أديك أن كوسا نقولنا أديك أن كوسا لابنا ونصوها نونا إبو الدنيا آخر وحفي عن نوقر أيو نبي ساسو أيو إلهي كعصري قال مرك إلهي وحيدي عذابي أصيب به من أشاء عذاب كعدان دون أيان قليا مركا وكا ورحمتي وسعت كل شيء لكن حريص تيدنا وحول بوي كوين تحي وكا يا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء عذابك عدان دونه أيان قليا يا مركوا عشر كي هوري ينقصوا باللوني مقارنة حلقة أم عشر كان أنا قوم قعدري مؤمنك إلهي محك فلان كرا آخره وحن كسر هالله عيدا بدن أو إن إلهي دونستسو أي مطلق تهاي وعدوا دونا وعذابه وعدوا دونا ونحرسنا يو
haba yaraatee criteria la isku haleeyana meeshan ayna jirin xataa camalka saalixa in la isku haleyn karin ma garanaysaa waad xisata xadiiskii nabi maxamed cabdullah ibn mas'ud wariyay oo yiri la ahad yanju bi amalihi nina camalkiisa kuma badbaado wala anta ya rasuulullah wala ana illa an yataqammadani allah bi rahmatin minhu wa fadlin yiri ilaahay in xariista mooyane nina camal kuma badbaado marka camalkii waa la kansalay naxariista ilaahay ayaa marka la hoos joogaa weeyaan naxariista ilaahayna waxa weeyaan doonista ilaahay bay ku xidhan tahay qaala cadaabi usiibu bihi man ashaa ciddaa doonan cadaaba ورحمتي وسعت كل شيء حريست يدنا لكن وحول بويك وين تهي أي عيد الله أساس إلهي ورحمتي وسعت كل شيء نحريست يدنا وحول بويك وين تهي فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون زكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون لكن نحريست يدا وحن أقريا فسأكتبها نحريست يدا وحن أقريا الذين يتقون كو إلهي كعب صدا ويؤتون زكاة إسكذا بحية والذين هم بآياتنا يؤمنون كو آياتها يجي معجزات كي يجي رمينا وان أقرينا يو نحريس يوحو ناكسن أيان أقرينا أيو بيجري سيدا قرآن كنو سوق بي وسورة الأعراف أما chapter كتضباد آيات بقول يشاني يو كنترول أعراف وحوين وchapter كتضباد آيات بقول يشاني كنترول أنك سعود مركا آيات داس وحو دركي ساي عذاب كي ينحريس تبا والا شاقي مركا عذاب كي ينحريس تبا والا شاقي التهريب والترغيب على لها في عربية أما فقه إسلامي يا عبسي يرجو وكا دينة إسلامك بدبادة قفك مسلم كل بعض عسى وده حيسا عبسي يرجو وأدقى سفعنا أركضون إلى الصعب قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آيادنا waxaa aad loo rajageliyay oo loogu qalbi qaboojiyay dadka mu'miniinta caasiyiinta ah marka sida quraanku leeyahay ilaahay wuxuu yiri qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim nabi allah waxaad ku tiraha adoomadayda naftooda ku xadgudbay weeyaan adoomadayda naftooda ku xadgudbay dambiga badsaday weey alladhina asrafu ala anfusihim kuwa dambiga badsaday waxaad ku tiraha nabiyow لا تقنطوا من رحمة الله ونحريست إلهي حققوا صننا نحريست إلهي حققوا صننا إن الله يغفر الذنوب جميعا محيا إلهي دنبك نو دافع يغفر الذنوب جميعا دنبك استوى دافع إنه هو الغفور الرحيم وأنا إله دنب داف بدن ونحريس بدن مركا وآيات معان أو لو قلب قوتشنا يو دنبي لياش دنبك بتصلا دنبك أنتو دونا هلا كاده نحريست إلهي حققوا صننا يا عاد الله لا تقنطوا من رحمة الله نحريست إيه حققوا صننا حيا الإلهي دنبك أردن ودافع إن الله يغفر الذنوب جميعا آيات كلا إنه شيء ذا الشرك مويانه يقف مسلم وهو حق در اللي ود لي مويانه يا دنبيده أنت كردن ودافع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آيات قرآن آيات إلهي مع فيه إن الله شرك يرى وإله نمدي ستات كلا لا وداعيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن وحي أنت شركة كسرها عدو دونه إلهي قدام بالدافع أي آيات كلا يعني سورة النساء كتير من الملاك وانقرت مركا وحويا وسورة الزمر ويان أما chapter كا 39:52 ويان آيات الزمر سورة الزمر آيات ده كنتم يلا بوي آيات أكو أخري آيات داس مقرنين سالي مؤمنين دتك مؤمنين تدنبابي نحريست إيه بحق قوسننا مركز سيدا آيات دا كم مقطع ومؤمنين تلوتشي دتك مؤمنين تا يا أو سيدا علماء الإسلام كأي قبان قالوا مسوق ليان كم فايد سنيان طلقات كان ينحريستا ومقرنين سالي كوان إلهي برضو ما يسنين عباد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كوا مؤمنين تهلوتشي دا مركا آيات القرآن كساسي وتشي دا نمان إلهي برو ما يسنين مسوه وسكلي هالكا قصع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بلادها أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والبقروي أما chapter 2 آيات الله بقوليو سيديتن يلح وحيلاد هاي مرك آياتنا وحي دبس عتي آيات كهري سبا جرتي أو مقرنسا آيات لوغا أدقحي يا وهاي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إسلا سورة البقرة أي كتير آية داس. وإن تبدوا ما في أنفسكم هذا واحد نفتي إن كتيره سواء مجسان أو تخفوه أم أتقرسان يحاسبكم به الله وإلهي وإذين قبصنا يا مركاسي أصحاب النبي محمد وأرجع جحين ومرجودين وواحد مقرنيسا واحد قصته يا واحد سامي سبب والجو قبس المركي ليل وأرنت ويعد كاتي مركا آياتنا سود كتير عليه مركا ولا خفيفية وليس كبا لا خفيفية وأرجع حدي أي لا خفيفية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بالي مركا إلهي نفط وما قبصه وح أين حمل كريم قفك وح وقاد كرم بالله قبصه وح وسنقاد كريم إلهي وما قبصه قفك بنا آذن كأ ويان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قفك وح وسنقاد كريم أو تكاليف دينه يا أما الدنب اللي وقف صداع أما عبادة أتكتك تهان نقطه وحويا واحد أودو أنبو إلهي كوقاب سنكراوي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نفط وحيلادا وحي كسبته إيه وناغا وعليها ما اكتسبت إيه وحي دشيدا إيه مقرنيسا مسؤولية أي لادا نفط مركا دعاء مش كتيرت مركا حيلادا هاي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إيه بو هنوقف سنين هدانو هالمعنو أو أخطأنا أما نقفنه هنوقف سنين أي مؤمنين تكدوا عايزتين ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا عليس نحن الدول صارن سيدي كوي نجوري الدول صارتي مركا ماشاس ومسألة خلافية ويانو دين الإسلام كوا حيكون ضوضاء إن أي ديمه كوريي واحد بدن أو عصلال لغا خفيفية مؤمنين تا أو يتهدين لخفيفية أو دادك أود دودا للاسماي أو مقرنيسا توريات صالحان أي كترين شرعيو يوحيابا آد وعدك أو دادكو أين قايد كرين مرك نبي محمد مدام النبي نحريست وياهي واحد بدن إنو إلهي مقرنيسا كعد صدي إن أمديسا لغا خفيفية وسيدا أي كدو دي المسلمين تو لكن أرنتا عدين لو ماهيو maxaa laga wadaa tawreed haddaad eegto tawreed baa ka fududayd islaamka tawreeddii nabi muuse loo soo dhiibay ayaa ka fududayd islaamka oo ka sharciya yarayd oo ka takaaliif yarayd ma garanaysaa waa yaab samaha oo xataa 5 salaadood iyo soon waajiba iyo cibaadooyinkan mukallafka ah islaamka ku jira iyo jihaadka iyo kuma jirin tawreed kuma jiraan يا كما حملته على الذين من قبل بان دبس كو سيدي اد كوي هوري كوي انغا نغوري وحيابه اد كو ادكيسي يا انغا هنو ادكين ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا سيدي كوي انغا نغوري عليسكي علابتي اد صارتي تكاليفتي بدنيد انغا هنا دول صارين marka quraanku ayaa ku dooday hada tawreed adigu waad isbarbar dhigi kartaa tawreed maanta way taalaa Google baad ka heli kartaa waad la soo degi kartaa iyadoo afkaad rabto ku qoran waad isbarbar dhigi kartaa sharciyada tawreed ku qoraa ee reebna Israa'iil la dul saaray iyo sharciyada islaamka ku qoran ee quraanku la soo degay adigu waad arkaysaa marka in lagaaga sheekeeyo maaha quraanku marka wuxuu ku doodaa markasta kama min qablina ya kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum sidii soomka idinku waajibay sidii idinku horreeyay soomka loogu waajibay goorma kuwii muslimka ka horreeyay goorma soom lagu waajibay kristan kana soom waajibu kuma jiro judaism kana soom waajibu kuma jiro oo bil kasta soo noqda ya waa arrin yaab sooma jihad kana waa sidii kuwii ka horreeyay idinku loogu waajibay jihadna lagu waajibinin cibaadooyinkan adaga islaamku la soo degay ee uu dabada u galay ugu abtiriyo tawreed iyo sharciyadii islaamka ka horreeyay haba yaraatee tawreed kuma jiraan marka quraanka ayaa la gaara marka arrin la yaab leh mawduuca markale ayaan ka hadli doonaa waxyaabaha uu quraanku sheegtay ee aan tawreed iyo injiil midna ku qorayn
مربان كهل دونا وموضوع آد وحساسي وآد ويابضا وحكمد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأعمالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان إلهي مؤمنين توحو كقتي نفتوض يمال كوضا أيو جنة كسيستي أياكو قران يا وعدا عليه حقا وحنا كقره هشيسكاس في التوراة والإنجيل والفرقان توراة إيه إنجيل إيه فرقان توراة إيه إنجيل كما قرأ جهاد مؤمنين تجنا لغا سيستي وياب صوما كما قرأ ها بعد أدبك السهل ها يا وحا توراة كقرأ إن وحلي له دولة وطنية اليهودية دولة دي يهودة ريد بن إسرائيل ninkii la oran jiray boqor Shaul uu hogaaminayay dhulka Israa'iil inay qabsadaan way Kancaaniyiinta iyo Falastiiniyiinta dhulka ka qabsadaan ayaa la amray khariiradna waa la siiyay wax jihaad iyo wax janno oo meesha ku jiray ma jirin waxay ahayd dhulka reer bani Israa'iil ardu Israa'iil in dawladda Israa'iil loo qabto ha wa awrathna ardnahum amwaalahum ayuu quraanku saasuu sida aan u soo xigtay reer dhulka idinka la siiyay qabsada lagu reer bani Israa'iil جننا لو بلن قادين جهاد نمجرين آخر أجر إلى أكثر لغيره دولة وطنية هاي يا حتى دوتي مادة مسيحية ده أما كريستان كان واحد جهاد وابا حرام با جهاد رنبا يقف إلا الدلو وابا حرام با حتى دات قصاص اللي الدلو على نسخي حدود قصاص ده التوراة كقرآن يا النفس والنفس بالعين والسن بالسن ينشيل كون نسخي با ها وبا نسخي ينشيلكو مركا وحويا موضوع كلام قلاي عن أصلا نقض موضوع عيب محنك وذا كما حملته ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبل ما بعد وسعدا سيدي أتكوي أنك النجهري واحد بدن وعدك الدول صارتي أنك أنا واحد بدن هنا الدول صارين يا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وحنا نقاد كرنا هنا الدول صارين تكاليف أن نقاد كرنا هنا الدول صارين واعف عنا واغفر لنا نعفي ونود مداف ورحمنا نون حريصو أنت مولانا أديك ولي يجي أو كان نوجر جاري فانصرنا على القوم الكافرين قال هذا نوجهيلي أي آية ولا هذا مركب الدعاء وحين كل بالعواتها وماشى وحن أسود اللي شدي آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مركب رجع كشرته وواحد قاعد كرتان باليدين قبسان كرابع يجري والبقرة لو بقول يزديتني اللحم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم والحجر أما عتب كشان يطبنات آيات أفرتني سيدين نبئ أورن نبي محمد وأدوم هذا واحد أشيكتها أني أنا غفور رحيم إن إلهي نحريس بدن هاي إله دمداف بدن نحريس بدن إن أن هاي أشيك انت سكليا ما هي waxaad u sheegtaa wa anna cadaabi huwa alcadaab alaliim oka warkii cad marka adoomadeeda waxaad u sheegtaa inaan ahay ilaah dami dhaaf badan oo naxariis badan waxaanad u sheegtaa isla markaas inaan ahay ilaah in cadaabkaygu aad u kulul yahay marka xawaan naxariista ilaahayna filo cadaabka ilaahayna ka cabso weeyaan oka ya waa labadaas islaamka caqiidadiisa waa sida shimbirta ay laba baad ugu duusho hal baad ayna ugu duuli karin وحوين نحريست إلهنا رجع عذابك إلهنا كعب سويا وكامرك والخوف والرجاء ويا والعصا والجدر ويا وحوين أشي كاروتكي ما فهمي سا مركوا سورة الحجر أما تطر الشني طمنات آيات أفرتني سيدين يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وسورة يوسف وحاكها وحاها يعقوب أما النبي يعقوب سيد الإسلام كو يقان نبي يعقوب مركا حويان يوسف أيا لواي ولا الذي باشر قولوا انتي عيل كردين أي أرجع إلى تشوجين أرك كمد انتي سوقبتين يقورعين بي داركيسي ديغي أورغا مريم مركاس دان يوسف وحا عناي بحال با عناي marka muddo kadib ayay abaar u dhacday oo dhulkii uu Yacquub deganaa ayaa abaar ka dhacday marka xagga ay Masar ayaa loo doontay raashin
marka Yusuf marka boqor buu ka noqday Masar madax buu ka noqday wuxuu ka noqday wasiirka maaliyadda oo kale jago weyn buu siiyay boqorkii Fircoon waagaas Yusuf marka Yusuf walaaladii markuu tagay Yusuf walaaladii uu gartay Benyamin oo walaaladii ugu yaraa ayuu la haray marka waa sheeko dheer waa qiso dheer marka dhowr jeer bay safreen markii saddexaad walaalkii la haray marka wuxuu sameeyay trick yani qaab xigmad ayuu sameeyo balqacadiisi dahabka ahayd ayuu walaalkii reeriyadiis ku qariyay markay tagayeen ay macsalaameynayeen ayuu yiri tuuga idinku jirto alaab laga xaday ya balqacadii boqorka dahabka ayaad xadeen ninkii laga helana waa la adoonsano waa la haray buu yiri markaasay argagaxeen oo ooyeen oo dhulka isla dhaceen oo roobeen ugu weynaa baa yiri aniga la haray may ninka laga helo baa leeyahay waa anigu dulmi ma sameynayay buu kiina laga helay balqacada boqorka kaas ma la haray marka waa la baaray balqacadi waxa laga helay kii u yaraa ee Yusuf la bahda Benyamin oo Raxiil ay dhashay markaas Yusuf ya Benyamin la haray sagaalkii kale ooyay oo murugaysan aabahoodna wuxuu ku dhaariyay inay la soo colayaan wuxuu yiri kii weynaaba iga lumay oo saa ku waayo tiraahin waraaba cunay hadduu kana la waayo naftayda cadaab baad dhulka u gelinaysaa muruga idil saas ku yiri markaasay yay u yimaadeen markaas Yacquub khalaas wuu in dhabeeleba oday weyn uu ah 90 jira marka murugu dhulka la galay quraanka aayad suuratu inni ashku bathi wa huzni ila Allah buu murugadayda iyo balayada igu dhacday Ilaahay baan u sheeganayaa buu waa suuratu Yusuf baad qisada ka helaysaane marka mar dambe oo xoogaa murugadii ay ka yar degtay uu magaranaysaa shoog ka baay ayuu yiri warbal ordo oo wiilkii raadiya iyo walaalkiiba Benyamin iyo Yusuf raadiye buu ha idhab ya bunay idhabu fatahassasu buu wiilashaydiyo bal tago oo wiilashii raadiye fatahassasu min Yusuf wa akhi Yusuf iyo walaalkii Benyamin bal raadiye buu ولا تيأسوا من روح الله ماشان آيات وسع دواتن ولا تيأسوا حققوا صننا من روح الله نحريست إلهي حققوا صننا إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون قال هذا بان حريست إلهي كقوسته إلهي نحريستي حققوا صننا إيه أرضو ولا الذين راديه بكير وسورة يوسف أما تبتكر الله بتبنات آيات سديتن يلح مركا waxaan uga socdaa naxariista Ilaahay gaalada umba ka qoosatay naxariista Ilaahay ka qoosanina wala tayasu min ruuxillah aayad kale wax leedahay am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tiyakum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib marka waxa weeyaan waa aayad kulul weeyaan waxa مؤمنينتا إن محمد رعسنا يا وحلو بريء مركز علي أم حسبتم ما وحق ملايسين أن تدخلوا الجنة جنة إن لسك قالوا بيان ملايسين ها سفضت أو مكاننا سا بالعم حنا ده إن جنة لسك قالوا مياد ملايسين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بلا يوينكي يمصيبو ينكي كوي إذن كهرية كل عظيم iyadoo ayna idin ku dhicin ina jannada la iska galo miyaad u maleynaysaan muuminiinta idin ka horeysay dhibkay mareen idin koon marin in jannada la iska galo miyaad u maleynaysaan bay aayadu leedahay masatumul ba'sa wa darraa waxa ku dhacay ba's iyo darraa ba'siga waxa la dhahaa dagaal ayaa qabsaday wa darraa durkuna waxa weeyaan waa gaajada iyo silica iyo haraadka weeyaan marka masatumul ba'sa wa darraa ayaa qabsaday dadka idinka horeeyay muuminiinta idinka horeeyay wazulzilu waa la gilgilay ya iimaankoodii iyo rumaysadkoodii waa la gilgilay hatta yaqula rasuul illa rasuulkii waagaas waa nabi maxamed ma waa kuwii ka horeeyay rasuulada reer bani israa'iil baa laga hadlayaa hatta yaqula rasuul walladina ma'ahu illa rasuulka rasuuladaasi ay yiraahdeen iyo walladina ma'ahu kuwii isaga la joogay muuminiinta ahaa mata nasrullahi eebo goormad noo gargaaraysa ala inna nasrallahi qarib baa lagu markaa gargaarka ilaahay uu idin dhow yahay marka xaween aayad waxay leedahay sunna idin ku jira iyo casharo wax lagu qaato ayaa ummadihi idin ka horeeyay idin ku jira maxaa yeelay jannada si fudud leeyahay ma galo marka jannada islaamka dib badan baa loo maraa maxnad badan baa loo maraa dagaal iyo jihaad baa loo galaa xanuun iyo gaajo iyo haraad iyo balaaya loo maraa weey warkii oo kooban marka xaween waa suuratu al-baqara
أما chapter 2 آيات الله بقولي صدحي طبعا نقزعله marka waxay mu'minkiiyo haddaad janno rabto balaayo iyo dagaal iyo mixnad u dulqaado weey waxa soo dhib aad dhex marto waan garto waxa leedahay aayad kale qul inma ana basharun mithlakum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada wa al-kahf marka waxay leedahay ninkii ilaahay rajaynaya ee janno rajaynaya wax fiican ha sameeyo rabbigiina yuuna u sharig yeelin warkii oo kooban waxaad ku tiraahdaa maxamedow qul inma ana basharun mithlakum waxaan ahay bini aadan idinkoo kala ah yuuxa ilayya waa la ii warramaya waa la ii waxyoodaa maxaa la ii waxyoodaa inuu ilaahiin mid kale yahay yuuxa ilayya annama ilaahukum ilahun waahid inuu ilaah kali aad leedihiin oo ilaahiin mid kale yahay ayaa la ii waxyoodaa faman kana yarju liqa'a rabbih marka ninkii doonaya inuu ninkii rajo ka qabto inuu ilaahay la kulmo way faman kana yarju liqa'a rabbih ninkii rajo ka qaba inuu ilaahay la kulmo falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahadan amal wanaagsan ha sameeyo rabbigiina yuuna u sharig yeelin marka amalkiina waa inuu macna sameeyeen waa inaga soo maray oo uu isbedelayo ama lagu badbaadayninba marka islaamku wuxuu leeyahay wadooyin iska rabiyaca oo fara badan ayuu leeyahay marka sidan uu leeyahay si kalena uu leeyahay oo sida ka soo horjeeda xadiiskii Abdullah ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'b wala socota Muslim uu wariyay la ahad yanju bi'amali qofan amalkiisa kuma badbaado bil xadiisku ayadana waxay leedahay cidi inay badbaado rabto ilaahay rajo ka qabta فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي leedahay marka sidana way leedahay quraanka sidana uu leeyahay sunnadina sidana ay leedahay aayadan sidana leeyahay aayada kalena si kale leeyihiin waa sida marka waa Allah sal halada wa al-a'raf marka ama chapter 18 verse 109 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما آيات معاوي آياتني ما يفعل الله بعذابكم عذاب كينا محوك فليا إلهي بإلا آياتني عذاب كينا محو إلهي كديف يا حنون كينا إن لذن عذابه ونارته إذن صلته إلهي محو كهليا إن عذابه إذن عنتو نارته إذن عنتو إلهي محو فائده كهليا وين ما يفعل الله بعذابكم عذاب كينا محوك فليا إبي شروط بها لسعت لكن إن شكرتم وآمنتم هذا مهد نقدان أود إيمان يرميس ديالتان إلهي إذن مع عذاب يوي نكفر يا عذاب كين ويان وركي أقوى ما يفعل الله بعذابكم ما ذو نكره ويان وديدمو واللي بقى لسعته تعجب يبلاغة ما يفعل الله بعذابكم إلهي عذاب كين محوك فليا إن شكرتم وآمنتم هذا مهد نقدان ورميس دي إيمان لتمادا وسورة النساء أما chapter 436 آيات بقول صدني اللي مركوا آيات ودي رجلنا يسمى مؤمنين تو وين قرت حق آية سنة بلان آدم مركع حديث وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وحديث معاوي يا رنتي وحديث معاوي لكن سانك كوسو شيغي ما كان لا قادن كرا مس حديثك كلا لا قادن كرا way iska horimarayaan meeshan wuxuu leeyahay xadiiskani shuruud baa la soo saxay qofkii qira inuu ilaahay mid yahay oon weligii u sharig yeelin oo qira inuu nabi maxamed adoonki ilaahay iyo rasuulki ilaahay yahay oo qira ciise masiix inuu adoonki ilaahay iyo rasuulki ilaahay yahay iyo kelimadiisii oo maryama ku tuuray iyo ruuxiisa waa tii aan soo maray moogtahay oo casharada aan ku soo maray ciise masiix inuu ciise masiix yahay cabdullaahi wa rasuulihi wa kalimatu alqaaha ila maryama wa ruuxun minhu waka inta qofkii qira jannaduna inay xaq tahay naartuna xaq tahay qira adkhalahu Allahu al-jannata ilaahi jannada ayuu galiyaa ala ma kaana min al-amal wuxuu doonaha siyaalo weeyaan wuxuu doonaha falo
وحو دونها فلو على ما كان من العمل متفق عليه بخاري ومسلم أيا وريي marka xadiiskani wuxuu sacad u sheegayaa in amalka jannada lagu galo oo qofkii ilaahay tawxiidkiisa qira oo nabinimada iyo risaalada nabi maxamed qira ciise masiix inuu rasuulka ilaahay yahay iyo ereyga ilaahay iyo ruuxi ilaahay inuu yahayna qira ilaahay jannadu galiyaa wuxuu rabaha sameeyay weeyaan xadiiskii muslimna wuxuu ahaa Ubay ibn Ka'b la ahad yanju bi'amalihi qofna amalkiisa kuma badbaado rasuul oo adigana dhaho anigana dhaho marka xaween ma kana qaadana mise xadiiska ka horeeyay ayaa qaadana muttafaqun alayhi macnaheedu waa maxay rawaahu al-bukhari wa muslim weeyaan bukhari muslim baa wariyay kii hore kan ka soo horjeedana muslim baa wariyay amalka dhanka salay marka adigan ku deynaya sheekho adiga ayaan ku deynaya xadiis kale oo bukhari wariyay xadiiskan af carabi kumaan helin waa xadiiska 6631 في Greece man kuga akhri wuxuu leeyahay Allah create mercy in 100 part and send down to earth only one part because of this one part there's mutual love amongst creation so much so that an animal will lift up its hoof from its young one حديثك waxay leedahay ilaahay in Allah khalaqa 100 rahmatin in Allah إن لله 100 رحمة أي لها هذا عربي حتى كو أخريه وأمسك عنده 99 رحمة إلهي وحوليه بقولنا حريصو ومركز سقالية سقاشن أيو أكتي سكو كيدي ميت كليئة أيو نحريستي لك أدونك أسودتشي مركز تا أودد أيا حيوان قردن سكون نحريستان إيا دادك قردن إلا أيدا بدو فرسكو أما هشو أي قاب كذا المهذا كر وقعده سأني ويستاجن وسدع مرك إلهي وحول لي هاي بقول نحريصات هل مد كلي أيو أدونك أسودتشي تاس أيا بني آدم كدن يسوون نحريستان ينورها أردن ويان حديث أساس وليه مرك حويان وحوريي بخاري يا مسلم باوريي حديث كاس سواء في إنجليزي ينكو أخي مرك حويان أصحاب الشرف له شرفت أصحاب شرفت 10 كنت حانو صاد أركسان آيات سوكوبتي آيات دا أنكو عليو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم الضوء دي دا أورهن وأشك إن أنا هي إبئ غفور رحيمة عذاب أدقنا له ها إلهنا حريص دنبقنا دافن حريستنا لكن عذابك يسكر بها مركا واسدا عذابك إلهي إن حريست إلهي وكا شنبرتو هل بعدكم مضوشو لما بعد بكدوشا مركا حوين قفكم مؤمنك وحلقة الربع إنه عذابك إلهي كعب صدو نحريست إلهي نرجيو مركا ما أنت 10 كم حكو سابسنا إن حريست إلهي نرجيو أن إلهي نحريستي سلقا قوصنن يا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إلهي عذابك إنه محكو فليا هداد مهد نقدان أود إيمان إيروميسة ديالتان مركا 10 كما كويس عندنا سداس إيو لسعد وناكسن